بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الحمد لله الذي نصر جنده وأعز عباده المؤمنين وكسر شوكة المفسدين والخوارج والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين caaway oo ay taariikhdu tahay 26 bisha Janaayo 2026 kuna beegan 7 Shacbaan 1447 waxaan halkaan ummadda Soomaaliyeed kula wadaagaynaa shirkan jiraayid annagoo taagan meel awood iyo kalsooni leh annagoo si cad uga dhawaaqayna guul taariikhi ah oo ay gaareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay garab siinayaan saaxiibadooda caalamka kadib dagaal adag oo xiriir ah oo socday in ka badan 2 toddobaad kuwaasoo lagula jiray kooxaha khawaarijta ee gabaadka ka dhiganayay deegaanka Jabad Godane ee dhaca bariga Xawaaley ee gobolka Shabeellada Dhexe ilaahay fadligiis iyo geesinimada ciidankeena dartood waxaa la burburiyay lana cirib tiray kooxahaas argagixisada ah ee duulaanka soo qaaday waxaana halkaas lagu dilay muddadii 2 toddobaad ahayd ee dagaalku socday tiro u dhaxaysa 120 ilaa 150 ayadoo maanta oo kaliya dagaalkii ahaa xalay bilowday ilaa galabtay casar liiqii socday lagu dilay 50 ka mid ah maleeshiyaadkaas oo ay ku jiraan 6 ka mid ah hogaamiyaashoodii ugu waaweynaa ee dagaalku hogaaminayay halka in ka badan 200 oo kale oo kooxaha khawaarijtaana ay ku dhaawacmeen muddadii dagaalkaasi socday tani waxay ahayd runtii darbaaxo culus oo burburisay qorshahoodii iyo riyooyinkoodii fidsashada dhul fidsashada iyo inay haweystaan inay qabsadaan dhulkan deegaamadan istaraatiijiga ah waxaa laga warqabaa in kooxahan ay ku faanayeen toddobaadyadii la soo dhaafay si kibira u sheeganayeen inay qabsan karaan deegaanada Jabad Godane una sii gudbi karaan ilaa xeebta Warshiiq haddaba waxaan si cad u niri oo ciidanka xoogga iyo dawladda Soomaaliya ay u yiraahdeen dalkan inuu leeyahay rag iyo gabdho uniformka u labistay si ay u difaacaan dhulkanna waxaa ilaalinaya ciidan qaran oo leh caqiido difaac midnimo dawladdooduna ay garab taagan tahay guusha maanta la gaaray ma aha oo kaliya mid military ama loo fasiran karo inay military kaliya tahay balse waxay fariin digniina u tahay oo loo dirayaa cid kasta oo ku fikiraysa inay halis geliso amniga midnimada iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale cid kastoo u riyaaqaysa cid kastoo niyadda ka jeclayd kuwa kastoo shirarkooda jiraayid ku sheegan jiray in al-shabaab dalka ay qabsanayaan ciidanka Soomaaliyana ay maaragtay aysan difaaci karin dalka cid kastoo sidaas aaminsaneed maanta waxaa u caddaatay si ka duwan taas meel ammaan ah uma jiri doonto kooxaha argagixisada fowdo inay dalka Soomaaliya qaraxyo iyo dhibaato ay ku sababaan ama dib ugu celiyaan dhibaatadii la soo marayna loo dulqaadan maayo lamana joojin doono dagaalka ilaa gabi ahaanba laga cirib tiro fikirka guracan iyo kooxaha xambaaray ee aaminay waxaa sidoo kale aan rabaa inaan halkaan uga hambaliyeeyo geesiyaasha ciidamada qaranka Soomaaliya ee kumaandoosta danab xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada ammaanka Jubbaland oo ayaguna toddobaadkan 10 adag u dhigay kooxaha khawaarijta magaalada jasiiradda ah ee Kudhaa runtii waxay u ahayd kooxaha khawaarijta isbuucan isbuuc aad u adag ayagoo halkaasi ku waayay in ka badan 70%
intii ay ku soo weerareen 200 ku dhowaad kooxoodii khawaarijta ee deegaankaasi sida gadarada ku weerartay halkaas ayay ku waayeen ciidankana ilaa iyo ayagoo daba jooga gaadiidkoodii la burburiyay waa tii la arkay waxaan u hambalyeynayaa geesiyadaas waxaan leenahay khawaarij meelu joogaba waa isku hal abtirsi hal khawaarij buu leeyahay waxaana cadow u ah shacabka Soomaaliyeed meelay joogaanba waxaa cadow u ah horumarka waxaa cadow u ah deganaanshaha waxaa cadow u ah dawladnimada marka meel kastoo khawaarij laga dilo iyo meel kastoo khawaarij lagu jabiyo guul ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay weeye geesiyada Jubbaland iyo ciidamadeena qarankuna aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa uga bogaadinaynaa inay halkaasi ka sii wadaan waxay ahayd 10 adag ayaa loo dhigay kooxahaas halkaas lagu dhigay meel kasta iyo fagaar kasta oo la isku qabtana maalmahan dambe kooxaha khawaarijtu jabkooda baa dhacayay waxaana guuleysanayay ciidamada qaranka iyo kuwa dawlad goboleedyada waxaan si weyn u bogaadinaynaa saraakiil xigeenada iyo askarta geesiyaasha ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo mar kale cadeeyay inay yihiin gaashaanka iyo seefta ummadda Soomaaliyeed gaashaanka ummadda Soomaaliyeed difaaca iyo seefta cadowga goysa waxaan u tacsiyeynayaa oo ilaahay shahiidnimadooda inuu ku aqbalaan u weydiinayaa geesiyaashii naftooda ku horay muddadii dagaalka xaqa ah lagula jiray kooxahaas waxaan alla uga baryayaa caafimaad degdeg inuu siiyo inta dhaawac ku noqotay waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinaynaa in howlgalladu ay sii socon doonaan maalmaha argagixisaduna ay noqon doonaan kuwa tirsamaya guushuna ay naga xigto waqti kooban gacanta dawladdu way adag tahay go'aankeedu ma ahan mid jilicsan marka argagixisada lala hadlayo guushuna waa tallaabo sugan oo loo qaaday dib u soo celinta amniga dalka iyo in lagu baahiyo haybadda dawladnimada guud ahaan gayiga Soomaaliya waxaan mar labaad rabaa inaan halkan iyadana uga mahadceliyo saaxiibada caalamka ee Soomaaliya caawiya ee Mareykanka ay ugu horeeyaan iyo saaxiibadan Turkiga oo ciidankeena la garab taagnaa garab istaag fiican la garab istaagay waxaan leenahay ciidamada qalabka sida meel kastoo ay joogaan iyo dadka Soomaaliyeedba khawaarijtii waa sii jabayaan khawaarijtii waa sii dabaxun yihiin waxaan si gaar ah rabaa inaan ula hadlo gobolka Shabeellada Dhexe oo ayaamihii dambe khawaarijtu iska dhaadhacsiisay inay guula ka soo hooyin karaan waxaa bilaabatay maantay iyo wargaadhi dagaalkii dhowr isbuuc ka hor wargaadhi kooxahaas lagu jabiyay iyo kii Masaajid Cali Guduud waxaa bilaabatay maalmihii qaraaraa ee kooxahaasi waxaa bilowday jabkii kooxahaasi dadka gobolka Shabeellada Dhexe degan iyo gobolada dalkoo dhan waxaan ku dhiirigelinaynaa inay heeriyada dulinimada heeriyada khawaarijta heeriyada fasaadka heeriyada dhiigyacabnimada heeriyada diin ku cayaarka inay heeriyadaas iska qaadaan garabna siiyaan ciidanka qalabka sida oo hadda u darbaday in dhammaan deegaamada gobolka Shabeellada Dhexe iyo gobolada dalkoo dhanba inay ka xoreeyaan kooxahaasi ilaahay ayaa ku mahadsan guusha waxaan leenahay ciidankeenu horay u socdaa waxaanan hadda xaqiijinaynaa in berri la soo bandhigi doono kooxahaasi meydadkoodii iyo waxyaalihii ay ka tageen maadaama dagaalku caaway maqribkii la isku gaaray waxaan xaqiijinaynaa deegaanka Jabad Godane in uu laga xoreeyay kooxaha firxadkoodiina in ciidanku ilaa xawaalay hadda duleedkeeda ay la sii marayaan subaxiina insha Allah aan rajaynayno in halkaas meediyaha kulliya la tago lana dul istaago khasaarihii kooxaas gaaray aad iyo aad baa u mahadsantiin